habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee BBC London qodobada barnaamijka caawa caalamka ugu waaweyn waxa kamid ah Soomaaliya waxa maanta dib ugu soo laabtay adeegii internetka oo muddo 3 toddobaad ka badan ka maqnaa qayb ka tirsan bartamaha iyo koonfurta dalka qoysas soo galooti ah oo uu kala kaxeeyay howlgalka Mareykanka ee lagu ugaarsanayo dadka muhaajiriinta waxaanu idinkaga haynaa warbixin gaar ah iyadoo toddobaadkan laanta af Soomaaliga ee BBC ay u dabaaldegayso sanad guurada 60aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay waxaanu magaalada Hargeysa kula hadli doonaa qaar ka mid ah wariyaashii caanka ahaa ee ka soo shaqeeyay halkan Soomaaliya waxa maanta dib u soo laabtay adeegii internetka oo muddo 3 toddobaad ka badan ka maqnaa qayb ka tirsan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya sida ay dawladda Soomaaliya sheegtay muddo 3 toddobaad ayuu internetku hawada ka maqnaa dawladdu waxa sidoo kale ay sheegtay in maalintii 10 milyan oo dollarka Mareykanka ah la khasaarayay wararka arrimahaasi ku saabsan waxaan goor dhaweyd ka wareystay wariyaha BBC ee arrimaha digitalka Xuseen Maxamed farxan internetkii ka maqnaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya 3 isbuuc dib ayuu u soo laabtay sida uu xaqiijiyay wasiirka isgaarsiinta iyo boostada injineer Cashuur wasiirka ayaa sidoo kale ugu baaqay shirkadaha qaybiya internetka ee koonfurta Soomaaliya iyo bartamaheeda in ay la imaadaan habsimi looga hortagi karo sidii loo badbaadin lahaa cable-ka ama xariga internetka ee jiraya maraakiibta maraysa badda ee Soomaaliya sidoo kale wasiirka ayaa hadalkiisa wuxuu raaciyay in ganacsatada ay fursad siiyaan ganacsatada yaryar ee internetleyda ah ee ka howlgala Muqdisho si ama goobaha kale ee Soomaaliya waa inay la imaadaan ganacsato ka madax banaan shirkadaha ganacsatada ee internetka si ay fursad u siiyaan ganacsato kale si loo helo haddii internetkan ama waxyaabo kale oo ka dhaco mar labaad si looga maarmo mar labaad madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay markii uu xafiiska u tartamayay inuu soo galootiga wax ka qabanayo isagoo ballan qaaday inuu masaafurinayo dambiilayaasha balse baaris ay BBC-du samaysay ayaa lagu ogaaday in la bartilmaameedsaday kumanaan muhaajiriinta aan sharciga haysan oo aan dambi galin iyadoo qoysaskana la kala qaybiyay Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya kuwani waa carruurta Duarte bishii May goor subax ah iyagoo isu diyaarinaya inay iskuulka tagaan waxaa gurigooda San Francisco California soo galay ciidamada ilaalada xuduudaha oo xiray labadooda waalid hooyaday ay u soo dhawaadeen waxay u sheegeen inay xirayaan waa naxnay kulligeen waa fariisanay oo iska ooynay waalidiintooda Rosinda iyo Francisco Duarte waxay Mareykanka sharci la'aan ugu noolaayeen in ka badan 21 sanadood ciidamada ilaalada xuduudaha waxay markii hore uga shakiyeen inay ku lug leeyihiin safrinta sharci darrada ah ee bani'aadanka balse markii dambe dhinacay iska dhigeen eedaasi waalidiintan waxay lahaayeen ganacsi iibiyay jalaatada wax dambi ahna laguma haysan wiilka qoyska ugu weyn ayaa hadda hawsha reerka wada ciidanka ilaalada xuduudahana waxay carruurta kaga tageen wiilkan oo 12 jir ah waxa ay weydiiyeen inaan Francisco ahay ha ayaan iri 19 jir miyaa tahay ha ayay u ekayd kadibna waa hayn kartaa ayay ugu yiraahdeen madaxweyne Trump ayaa doorashada ku galay inuu masaafurinayo dambiilayaasha boqolkii maalmood ee ugu horreeyay xukunkiisa waxaa la xiray 41,000 oo aan sharci haysan ama looga shakiyay sharci la'aan inta badan dambiilayaal ayay ahaayeen balse waxaa jira korar weyn sida qoyskan kuwa aan dambi gelin oo xisaabtana lagu darin taageerayaasha madaxweyne Trumpna waxay sheegayaan in dawladda ay raacayso qaynuunka cidina ma rabto in qoysaska la kala kaxeeyo waxaanaanu sheegaynaa haddii aad tahay qoys inaanad sharci darra halkan ku iman way dhacdaa mararka qaarkood ficilkii xumaa ee uu aabbuhu sameeyey ayaa ku dhaca innamadiisii taasina waa mid runtii dhibaato ah laakiinse dawladdu iyadu kama mas-uulaha dadka dembiga samaynaya carruurta Duarte ayaa aaday si ay u soo arkaan waalidkood oo ku jira xarunta dadka lagu hayo hooyadood damiin ayaa lagu soo daayey balse labada waalid waxaa suuragal ah in la masaafuriyo sida 11 milyan oo soo galooti ah oo Mareykanka ku jooga sharci la'aan faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixinadeenna waxaad ka heli kartaa bogga bbcsomali.com adiga oo ka geli kara mobilkaaga bal markan aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta
imaaraadka carabta ayaa beeniyey in ay ka dambeeyeen weerarkii bogog dhinaca internetka oo qatar ay leedahay bishii May kaasi oo ay gacan ka geystay xiisadda diblomaasi. wargeyska Washington Post ayaa sheegay in imaaraadka carabtu ay bilaabeen hawlgal ay hogaamiyaha qatar looga dhigayo in uu u muuqdo inuu ammaanayo Iiraan, laakiin imaaraadka carabta ayaa BBC-da u sheegay in warkaasi aanu sax ahayn. laba weerar oo bam ayaa ka dhacay maanta magaalada Maiduguri ee waqooyiga bari ee waddanka Nigeria. weerarka hore ayaa haweeney isku qarxisay masaajid dadku ay ku tukanayeen salaadii subax oo ay ku dhinteen 9 qof. weerar kale ayaa ka dhacay meel basaska laga raaco. toddobaadyadii ugu dambeeyay kooxda Boko Haram ayaa kor u qaaday weerarada inkasta oo madaxweyne Buhari uu sheegay sanadkii hore in laga adkaaday kooxdaasi. kooxda dhinaca samafalka ee qaxootiga ee golaha qaxootiga ee Norway ayaa sheegay in ka badan 1 milyan oo qof ay ku barakaceen hadda dagaalada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. kooxo hubaysan ayaa saxeexay heshiis dhowr nabadeed oo 3 sano u dambeysay, laakiin dagaalka ayaa sii soconayay in ka badan 100 kun oo waxa ay qaxeen bishii Abriil. laanta af Soomaaliga ee BBC toddobaadkan waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii 6aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay. waxay ahayd 18 bishii July sanadkii 1957 oo ku beegan maalinta bariya. haddaba muddadaasi 60 sano ee BBC Soomaali waxa soo maray wariyaal fara badan oo magac ku lahaa bulshada dhexdeeda. waxa kamid ahaa Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar, Aadan Nuux Dhulle iyo Yoonis Cali Nuur. telefishinka BBC ayaa magaalada Hargeysa kula kulmay waxaana ay ka sheekaysanayaan sida saxaafadda ay ku soo galeen. waxaan isweydiin horta wariyanimada mayayna soo doonatay mise inagaa doonanay? maxamed anigu waan doontay waanaan doonayay idaacadda inaan tago ood wariye noqoto oon wariye noqdo halkaa ka hadlo iyadoo weliba fikrad kalena ay ka dambayso shaqaale dowladda haddaad noqoto waddanku wadda ballaaran buu ahayo tuula haddii xanaanada xoolaha ama aad ka shaqayso tuulo dee meesha doontaa waa lagu tuuri karaa meelaan tuulaba lahayn oo ama muqdisho joogayso magaalo doonaysa magaalo weyn magaalo haddii muqdisho aad ka tagto Hargeysa aanad dhaafay taasi waa mid laakiin meesha aan doonayo soo doontay waxaan garanayaa muddo yaraantaydii raadiyooga lagu cabsin jiray ka baqan jiray oo waxa la yiraahdo ninkii raadiyooga sanduuq weyn oo wax ka hadlayaan oo maarkay dabadna ninka ku jira ninka raadiyooga la yiraahdo ayuunba ninkan halkaa ka hadlaya inuu dadka la mid ahay inuu iga dhaadhacday markaan wuxuu yiraahdaa hore Maxamuud hadda ninkii raadiyooga lagu yeedhi doona ama ninkii raadiyooga halka jooga maalintii aynu tagnay leenaga qaaday voiceska kadib markii leenaga qaaday programkii ugu horeeyay leenagu soo dhaweynaya Allah rahma Cabdi Xaashi Goobtoon inoo qabtay waan xasuustay war ninkii aad ka baqaysay loo jeedo ninkii raadiyooga halka jooga sawdiga adiga noqday ba Yoonis adiga ka waran wariyanimada maadaa doontay mise iyada ku soo doonatay? maya runtii horta iyada ay soo doonatay waxaan anu dalbaday ma ahayn anu waxaan dalbaday inaan film actor noqdo dadka filimada jila ayaan qortay beriga oo waxaan u malayn waxaan jeclaan jiray filmadan cowboy-ga la yiraahdo oo markii ugu horeysay film cowboy aan daawado ay ahayd halkan Arabsiyo dooxan Arabsiyo laakiin aanu ka yaacanay markaan fardihii iyo wixii filmkuna marka farduhu soo ordayay way soo dhawaanayaan oo way weynaanayaan waa ka ku jeeray baad oranaysaa waan ka waradnay inkastoo runtii markii camuudan ku jirnay inteen de isku wada faabayno ahay ma xagga shaqada oo meel baa laynu wada qoray ani iyo Allah naxariistay Ahmed Xasan Awke iyo nin Maxamuud Sheekh Axmed Taani loo jiro isna Canada tagay Dr. Maxamuud Awdaahir afqar shooy marka Mareykan jooga noqday buurtii yareed camuud intaan fuulo ayaan matili jiray rag beriga hadli jiray Xuseen Bulaale iyo ragii ka hadli jiray meesha Cusmaan Xasan iyo ninkii kale isna dalabaadka sheegi jiray Ismaan Sugulle ayaan matili jirnay laakiin beriga madaxa kuma hayn idaacad baad ka shaqeyn doontaa sidaa dalmar idaacaddii ugu horeysay halkan isla Arabsiyo sanduuq weyn baa hadlayay odaya markaa la naxartay maqaaxil ahaan jiray baa keensaday sanduuqii baan ku wareegay markii dambe waa ay ciidan meesha ka dhaxadlasaa mid adeero meesha fadhiyay
ayaa yidhi waa inankii cumar waa mid iga yaraa intaan dhagaxaan doontay baan baalkiisii doon ka soo saara meesha marka waa sidaasaan ku bilaabay markii dambe waxaa laygu daro liiskii radio muqdisho beriga aan muqdisho tagnay anigu haddaan eego werihii ugu horreeyey ee aan anigu dhegaysto waan codkiisa jeclaysto waxaa Mustafa Xaaji Nuur 1964 baan dagaalkii markii uu socday Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysay marka ereygu uu maalintaa lahaa oo ahaa cagahay ka deeno xaynkaas ayaan dhageystay marka codka waan jeclaa codadka mar baa jirtay markii uu cadaad la ku jiray inagoo dee intermediate waa dhamaysan aan warqad qoray warqadaasi nin baan u dhiibay boosta ku rid yani anoo shaqo ka doonaya laakiin meel ku dambeysay ma garanayo hase yeeshee markii dambe aynu meesha nimay ma soo qoran waqti la qoranayay marnaba idaacadda maan qoranin marka xiisaha hore uu jiray marka dambe laakiin ma jirin qaar ka mid ah wariyaashii hore ee laanta af Soomaaliga BBC markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn Roger Federer ayaa sheegay inuu mar walba aaminsanaa in uu mar kale ku guuleysan doono tenniska Wimbledon kadib markii uu soo afjaray 5 sano oo uu sugayay wuxuu ka guuleystay Marin Cilic isagoo oo qaaday koobka Wimbledon markii 8aad oo noqday qofkii ugu horeeyay ee qaada taariikhda 19 koob oo kale oo caalamka ayuu haystaa laakiin waxa uu wariyahayaga dhinaca tenniska Russell Fuller uu sheegay inuu rajaynayo safka hore inuu ku soo laabto waa laga yaabaa inaan noqdo ka u horeeya mar kale intii aan ciyaarayay tenniska waxaa laga yaabaa sanadkanu marka uu dhammaado inaan noqdo ka koobaad waa wax weyn laakiin waxa aad moodaa faraq badan inaanay u samaynaynin da'da hadda aan joogo haddii aan 7 kow noqdo iyo haddaan sanadka dabayaaqadiisa kow noqdo Harriet Riddle waxay safar ku martaa dunida oo dhan iyadoo sawir gacmeedyada u samaysa si ka duwan sidii hore loo yaqaanay waxayna nooga sheekaynaysaa bal sida ay u samayso sawiradaasi I started doing this 5 years ago. waxaan tolidda ka bilaabay 5 sano ka hor qol farshaxanka oo ku yaal jaamacadda Hertfordshire waxaan ka sameeyay gabdhaha dharka xayeysiye ee qaawan markaa wixii ka dambeeyayna aniga ayaa shaqaysanayay shaqadaydana goobo kala duwan oo caalamka ayaan u tagay dadka qaabab kala duwan ayay u arkeen waxa aan samaynayo dalka Kenya ayaa ahaa meesha aan kala kulmay soo dhaweynta ugu xun haweenka ma aysan jeclaan dhab ahaantii ima aysan fahmin aniga iyo waxa aan samaynayayba waa inaad aragti walba diyaar u ahaataa sababtoo ah waxaad shaqo u tagaysaa wadooyinka xaafadaha isku raranka ah adigoo ah gabar caddaan ah oo wada tarqaankeeda mar walbana xaalka ma wanaagsanaanayo balse arrintaasi mar unbay igu dhacday shaqooyin badan ayaan ka qabtaa xaafadaha isku raranka ah dadkuna si wanaagsan ayay iila dhaqmaan si wanaagsan ayaan ula sheekaystaa sababtoo ah wax badan ayaan ka baran karaa waxaana kelmadaha iyo astaamaha ku qarin karaa dharka aan tolo balse marka aan daalo wax badan ma hadli karo waxaan doorbidaa in aan dadka dhagaysto ugu dambeyntiina ma maqashay tartankii geela waxaa lagu qabtay Mongolia waa tartan dhinaca dhaqanka ah oo lagu tartamaya geela masaafadhan 1000 ilaa 10000 oo mitir 45 nin oo ragga geela ku baratama ayaa ka qayb galaya iyadoo dadka daawanayana ay kala taageerayaan tartankan dhinaca geela 4 sano mar ayaa la qabtaa wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa boggeena bbcsomali.com muuqaallo iyo sawirro kala duwan oo ku saabsan wararkaanu ka shaqaynayno waxa aad sidoo kale ka daalacan kartaa BBC Somali Facebook ha hilmaamin waxa sidoo kale anigii asxaabta nagula soo xiriiri kartaan ciwaanka iyaga Twitterka @BBC Somali inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale kulmayno dhammaantiinba habeen wanaagsan